waxay 19 Agosto 2011 markii caga dhigatay magaalada Muqdisho diyaarad waday madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare. wafdigan Erdogan ayaa waxaa ka mid ahaa dad fara badan oo isugu jira mas'uuliyiinta dawladda, ganacsato, wariyaal iyo xubno ka mid ah qoyskiisa. booqashadan taariikhiga ayaa timid kadib macluul ba'an oo ku dhufatay gobolada koonfurta Soomaaliya. macluushan ayaa galaafatay nolosha ilaa 250,000 oo ruux oo caruur u badan. booqashadan kadib waxaa dalka aad u yimid hay'adaha gargaarka Turkiga kuwaas oo raashin, biyo iyo daawaba u qaybinayay dadka abaartu saamaysay. sidoo kale dawladda Turkiga ayaa bilowday mashaariic horumarineed oo lagu taageerayo dawladda Soomaaliya. mashaariicdan ayaa isugu jiray kuwa lagu adkeynayo dawladnimada iyo kaabayaasha dhaqaalaha. waxaa 10kii sano ee la soo dhaafay deeqa waxbarasho ka helay dalka Turkiga arday ku dhow 5,000 oo baratay heerarka kala duwan ee waxbarashada laga soo bilaabo dugsiga sare ilaa iyo heerka PhD-da. ardaydan ayaa qaarkood haatan kaalin weyn kaga jira adkeynta xiriirka labada dal. Turkigu waxa uu noqday dalka koobaad ee Soomaalida dibadda waxbarasho ugu raadsadaan. sidoo kale waxaa kor u kacay xiriirka beec mushtari ee labada dal. halkii 2011 ka hor uu ahaa wax ka yar 5 milyan oo dollar waxa uu haatan gaaray ilaa 250 milyan oo dollar. Turkiga hadda waxa uu kaalimaha hore kaga jiraa dalalka xiriirka ganacsi la leh Soomaaliya. sharikado laga leeyahay Turkiga ayaa gacanta ku haya aeroboorka iyo dekedda magaalada Muqdisho oo dhaqaale baaxad la soo geliyo dawladda Soomaaliya. waxaana la filayaa in maalgashiyada iyo xiriirka ganacsi ee labada dal uu kor u kac baaxad weyn sameeyo sanadaha soo socda. dhanka kale diblomaasiyadda Turkiga 10kii sano ee la soo dhaafay waxay Soomaaliya u taageereen si xooggan. madaxweynaha Turkiga Erdogan waxa uu meel kasta oo kaga hadlay dhibaatada ka jirta Soomaaliya iyo sida caalamku uga gaabiyay. waxay Turkiga ka furteen Soomaaliya dhismaha safaaradooda ugu weyn caalamka. arrintan oo muujinaysa sida Turkiga uu doonayo inuu xiriir diblomaasiyadeed oo xeel dheer ah u la yeesho Soomaaliya. waxay kaalin muuqata ku leedahay dawladda Turkiga dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliya. waxayna Muqdisho ka samaysteen saldhig military oo lagu tababarayo ciidamada Soomaaliya. saldhigan tababar ee Turkisom waxaa lagu tababaray kumanaan ka mid ah dhalinyarada ciidanka xoogga oo isugu jira military iyo boolis. ilaa hadda ku dhawaad 3,000 oo ka mid ah ciidanka xoogga ayay Turkidu u tababareen Soomaaliya.